بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجkan waxaa kaga waramaynaa axaadiista ku saabsan camalada sababa galitaanka jannada. Halqadii hore waxaan kaga waramaynay axaadiista ku saabsanaa salaadaha waajibka ah sabab ayay u noqdaan galitaanka jannada. Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo inoo cadaynaya arrinkan ah in salaadaha waajibka ay sababaan galitaanka jannada. أن أعرابي جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. من أيام النبي قويم عليه الصلاة والسلام وحاو كيري يشاك صلاة والله يواجبي. فقال: الصلوات الخمسة إلا أن تتطوع شيئا. رسولك وحاو كيري شن صلاة باك واجبة inaad salaado sunnaa kordhisato mooye. فقال أعرابي: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام. ninkii ayaa nebiga ku yidhi ii sheeg soonka waa laygu waajibiyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi: shahru ramadaan ilaa an tadawwaca shay-an. rasuulku waxau yidhi bisha ramadaan baa kugu waajiba inaad soon sunnaa kordhisato mooye. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. يشاك سكده والله يواجبي. رسولك وحاو ورمي شرائع الإسلامك. قال: والذي أكرمك لا أتضوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. ninkii waxau yidhi allah ku karaamiyey baan ku dhaartaye sunno kordhisan maayo. alla waxau igu waajibiyeyna waxna ka dhimi maayo. faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam: aflaxa in sadaqa aw dakhala aljanna in sadaqa. rasuulkii waxau yidhi wuu guulaystay hadduu ka run sheego ama jannada ayuu galay hadduu ka run sheego. xadiiskaa waxau inoo caddaynayaa in salaadaha waajibka ah ay sababaan galitaanka jannada. isla xadiiska leh nebigoo inoo caddaynaya in salaadaha waajibka ah ay sababaan galitaanka jannada. waxa uu yidhi: man salla albardayni dakhala aljanna. nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka tukada labada qaqabow jannaduu galayaa. labada qaqabow waa labada salaadood ee salaada subax iyo salaada casar. labadaa xadiis waxa uu nebigu inooga warramay inay salaadaha waajibka ah ay sababaan galitaanka jannada. salaadaha aan ilaalinno, barnaamijkanna walaalaheenan gaadhsiinno si ay uga faa'iidaystaan camalada sababa galitaanka jannada. xalqadeennu halkaa haynoo joogto. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.